ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday, saddex kalena dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaadhay kadib markii iska horimaad maanta dhex maray maxaabiista ku xidhan xabsiga hoose magaalada Boorame iyo ciidanka ilaalada ee loo yaqaan Ayjeesha, kuwaasi oo la sheegay in markii dambe ay gadood ay sameeyeen maxaabiistu ay halkaasi ka dhalatay in dhakhtarka loo qaado dhaawaca iyo welibana dhimashada. waxaana sidoo kale eeriyadaasi oo dhan lagu daadiyey ciidanka militariga oo iyagu la wareegay guud ahaanba sugitaanka amniga shacabka iyo dadka maxaabiista ee ku jira gudaha. wararka naga soo gaadhaya gudaha xabsiga ayaa waxay sheegayaan in ay maxaabiistu dhammaantoodba la wareegeen qolalka kala duwan iyagoona furtay qaar ka mid ah albaabada ay maxaabiistu ku sugnaayeen. waxaa sidoo kale intaasi dheer in maamulka gobolka Awdal iyo ciidamada laamaha ammaanka oo iskaashanaya aanay jirin wax faahfaahin ah oo dheeraad ah oo ay ka bixiyeen sida ay dhab ahaantii u dhacday xaqiiqadaasi. hase ahaatee waxay sheegeen in laga heshiiyey geerida ku timiday wiilka ku dhintay isagu xabsiga gudihiisa. maanta rabshad ka dhacday xabsiga dhexe ee gobolka Awdal, rabshadaas oo ay sameeyeen maxaabiistii ku xidhnayd iyo ciidamadii ilaalada xabsiga oo runtii arrintaa inay joojiyaan qabtay. rabshaddaa waxaa ku dhintay oon ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa jannooyinkiisa inuu naxariisto marxuum Yunis Axmed Daahir, waxaana ku dhaawacmay Xamse Mustafe Cumar, Cabdi Qaadir Aadan iyo Xasan Xuseen Qaliinle. hal marxuum baa ku geeriyooday oo Yunis Axmed Daahir la yiraahdo, iyo saddex maxbuus oo kale. saddex maxbuus dhaawacoodu aad buu wanaagsan yahay, waxaana lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee gobolka Awdal degmada Boorame. marxuumkii halkan waxaa fadhiya jifadii ama qoyskii uu ka soo jeeday ee marxuumka dhintay, guddigii nabadgelyada iyo janankii guud ee ciidamada asluubta qaranka jamhuuriyadda Somaliland, suldaankii guud ee marxuumku ka soo jeeday suldaan Axmed Cilmi Kabaal oo wada garanaysaan, walaaladii iyo faamiligii uu marxuumku ka dhintay baa halkan wada fadhiya. ilaahay subxaana wa tacaala qof walbana maalin buu dhimanayaa, si kasta uu ku baxo maalin buu qof walba ka tegayaa. tan waxaanu aad uga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad baa jifada marxuumku ka baxay oo walaaladii halkaa fadhiya inay sameeyeen ilmaaradii, salaadiintii iyo qoyskii oo dhan iyagoo isku duuban inay sameeyeen runtii arrin aad iyo aad iyo aad u qiimo badan. gobolka iyo shacabka deganna runtii u baahan in lagu daydo. haddaanu dowladda nahay, annagoo ku hadlaya afkii dowladda, marxuumkaa halkaa ku dhintay waxaanu go'aaminay in magtiisa ay dowladdu qabto, aaskiisiina waa la bixinayaa, magtiisiina ay qabto. waxaanu ku heshiinay jifadii marxuumka inay iyaguna sidaa ku samraan, ku aqbalaan, ku qaataan. insha allahu tacaala si guudna aaskiisa beriya uga wada qayb geli doono, sababtaa maanta wuxuu dib ugu dhacay jifadii baa iyo faamiliyadii baa runtii aan la sugayna aaska. laakiin hawshaa waxaanu si wada jira ugu wada dhammaynay in marxuumkaana magtiisii dowladdu qabto, iyaguna sidaasay ku samreen, ku qaateen. waana uga mahad celinaynaa suldaanka guud ee beesha suldaan Axmed Cilmi Kabaal iyo odayada jifadu ka soo jeediyay walaaladii oo si wacan u gobonimo ah. waxaan aad uga mahad celinaynaa jananka guud ee ciidamada xabsiga Somaliland, ciidanka asluubta Somaliland, oo runtii arrinkani si gaar ah uu quseynayay jifadii uu ka dhintay marxuumkana ah. oo haddaanu maanta joogin arrintani runtii aanay suurto gasheen. aad baan kugu mahad celinaynaa
jenaraale anigoo ah sodaankii guud ee marxuumka maanta yoonis axmed ducaale ka baxay waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo qaraabadu ka baxay iyo ehelkii iyo dhammaan reedidu meesha joogaanba waxaan leeyahay samari meel anaga wada siiyo hadalkii guddoomiyaha dhameeyey halka waxaa fadhiya madaxdii gobolka taliyii qaybta booliiska guddoomiyihii jarankii ciidanka asluubta maayirkii marka waxaan isla garanay in hawshaasi sidaa aan ku dhammaysano hawshuna iska maqaadiir bay ahayd wax ku talagal ma ahayn maxaabiis kacdoon samaysay ahayd arrintaasna maaragtay waa saasay ku dhammaatay waa lasoo waa arkaas saas ku dhammaaday marka waxaan kusoo gabagabeynayaa sidaa maamulka gobolku ay hawshaa soo afjareen iyaan la qaadanay iyo taliyaha ciidanka asluubta jenaraal libaax sidaas ayaan hawsha kusoo gabagabeynay waxaan leeyahay samir yimaan qoyskii heliyo ka baxayna mar labaad allah naga siiyo